6 sano ka hor in ay ugu dambeysay gobolka Hiiraan ama magaalada Balad ay doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo maantay waxaan halkan waa xarunta maamulka magaalada Beledweyne waxa maanta ka qabsatay daafurka diiwaangelinta codbixiyaasha ee doorashooyinka qofka codka iyadoo isla markaana maanta ay halkan soo dhaafiyeen guud ahaan dadka shacabka ee ku sugan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kuwaas oo sheegay inay doonayaan inay ku xilbaxaan codkooda sidoo kalena dalka xilli u aaday doorashada qofka codka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaan horey u sheegay in dalku u aaday doorasho qofka codka isla markaana looga baahan yahay qof waliba ama shacabka Soomaaliyeed in talada ay markaas dabcan agtooda ay taalo loogana baahan yahay in markaa qofka ayaga rabaan ay doortaan halkan markaas badan kala duwan ama halkan ka jeediyo khudbad dhinacyo badan taabanayso gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Maxamed Carab oo daahfuray sidoo kalena dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada ku nool magaalada Beledweyne ugu baaqay in markaas ay ku xilbaxaan codkooda cid ay rabaan ay doortaan sidoo kalena ay isdiiwaangeliyaan boqolaal shacab ayaa halkan ku sugan kuwaas oo sidoo kalena dareenkooda ay markaas u sheegay in maanta ay u tahay maalin weyn isla markaana ay rabaan in cidda ayaga ay doortaan ay keensadaan waxa ugu horreyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Maxamed Carab oo dabcan sheegay in dadka shacabka waqtigan la joogo taladooda iyaga ay ag taalo aniga ka gudoomiyaha waxa ay fursada maanta inaan daahfuro hal qof iyo hal cod antay waa maalin weyn oo taariikhi waxaan qiyaasayaa 6 sano ka hor in ay ugu dambeysay gobolka Hiiraan ama magaalada Beledweyne inay doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo maantay waxaan u taaganahay dadka reer Beledweyne mar Hiiraan diyaar u yihiin inay doorashadaas ka qayb qaataan ay u soo diyaargaroobaan oo qof iyo cod ah ugu horeyn halkan waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo nagu dhiirigeliyay in shaqadan aan qabanno dadka reer Hiiraan ama reer Beledweyne waxaan leeyahay dadku waxay ku imaajireen warqad oo qofka inta la soo magacaabo markii uu bila ama maalmo jooga soo waqtigiisii aan dhameysin xilka laga qaado markaas shaqadiisii waajibaadkiisina meel la hayo marayaan laakiin waxaan filaynaa wixii hadda ka dambeeyo qofka inuu maandeydii waqti uu heli doono oo ku nasto oo shaqadiisa ku qabsan karo oo hawlo badan ku guda karo maanta waxa farxad weyn noo ah inay dadku diyaar u yihiin inay shaqadooda iyo danahooda iyo hawlahooda ka shaqeystaan aniga ka gudoomiyaha waxa ay fursada maanta inaan daahfuro hal qof iyo hal cod gaar ahaan gobolka Hiiraan gaar ahaan gobolka Hiiraan qaasatan magaalada Beledweyne waa magaalo weyn waa magaaladii ganacsiga waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan waxaan leeyahay reer Hiiraan ama reer Beledweyne dad sharaf badan aatiin sharaf leed ku yaqaana wanaaga leed ku yaqaana dad oo ida soo dhaxgalo siyaasadan gooni leh waxba gooni ka qaban maayo adika ayaa dantiina iyo muhiimadiina ka shaqeynayna waxa muhiim ah in danahiina iyo xaaladihiina iyo goobaha doorashooyinka la calaamadeeyay waa isku sheegi doonaa si hoosan u hadli doonaa si toos ah doorashooyinka lagu dareero qof walba codkiisa uu ku ciilbaxo dadku way sameeyeen qof wax dheer ma jirto waa isku mid qabaayil kala manihin reer Hiiraan la yiraahdo dhamaanteen walaalayaal waxa waaye maantay maalin oo weyn oo taariikhi ah laakiin dadku qaar ma fahmi karaan ma siyaasadeynayno wax kale ma dhaxgali doono waxa noo muhiim ah dadku inay midaysan yihiin hal midan ay yihiin waxaan idin mahadcelinayaa sida sharafta leh ee u soo camirteen goobtan waa wax weyn oo qaali ah taasi waxay ka turjumaysaa inaad diyaar u tihiin inaad ka qayb qaadataan doorashada dalka uu dareeray annaga waxaan nahay dalka Soomaaliya dhammaan doorasho u wada dareeray reer Hiiraan waxa waaye way diyaarsan yihiin hal qof iyo hal cod ay diyaar u yihiin annaga diyaaraan nahay sidoo kale waxaan fursadan ugu faa'iideysana waxa jira maalmahan waxaan ugu soo kordhay qawaarijtii wad la socotaan habeen hore Nuurxawaad waxa ka dhacay kulay rag baa ka hortagay waa laga guuleystay waana la jabiyay sidoo kale taasna inaan ka foorjirnaano is garabsanno sida habeen hore Nuurxawaad ka dhacday in xaafad kasta ay ka dhacdana waa rajaynayna
qof walbayna ay amniga wax ka sugto dadku saraakiisha bas iyo ciidamada amniga kuma hadlay karno waa shacabka inuu wax soo sheegaa oo yiraahdo waxaana meeshan ka jiraan intaana meeshan ka jiraan saraakiishu diyaaray tahay ciidamadu diyaaray yihiin dhammaantiin waa mahadsantihiin maanta waa maalin weyn farxad ay noo tahay waa hal qof iyo hal cod doorashadu waa inoo daafuran tahay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh liibaan suubane daawud idaacadda TV-ga Shabeelle Beledweyne